برلمان أبو صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوميها قلها وكيلنا دمان حبناها قلها وكيلنا هولودنا قلها مرتشرفتي صحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومية يا مدن ريال ما أنت taariikhdu waxa weeye 27 bisha 8aad 2018 kal fadhiga 14aad fadhigiisa 27aad kooramka hadda fadhiya waa 40 mudane fasax iyo jiruna waa 3 maqnaashuna waa 23 waxaanu ku furanaynaa hawl maalmeedkeena sida caadadeena ah ay ugu anfaco mudane gudoomiye waan kugu soo dhaweynayaa si aad noogu furtid hawl maalmeedkii ku soo dhawow waxaan horeysiinayna mooshinka waxaa weeyaa waxaa habraaciisa noqonaya 6 baa soo gudbisa 22 baa ku raacda marka 22 uu helo wuu hirgalay doontiisa habraacaysa doonta markay xidhantana 34 ayuu ku meelmaraya habraacaasa la socona mooshinka ujeedka loo qoray iyo tirada qotay baa la soo jeedinaya mooshinka markuu la akhriyo wuxuu yeelinayaa xawaayihu mudanayaasha xildhibaan kasta markii la yeeliyo magaciisa iska arko gacan taagaya ninkii aan taaginna waa laga saaraya sidaasaynu soo soconaa haddii tiro jirto codka aan isdhegaysano kabacdi si tirada loo soco shaqaaluhu saxaan. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan idin akhriyayaa sida gudoomiyuhu noo sheegay mooshin la keenay xafiiska xogeyaha lana wadaagay gudoonka golaha ayna soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dawladda Puntland waana sidan ku gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland ujeedo mooshin ka dhan ah heshiiskii dekadda Boosaaso mudane gudoomiye iyo mudanaya maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha 6aad sida uu qoran weeye 16 bisha 6aad 2018 waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekadda Boosaaso kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo uu dhigayay in shirkaddu dekadda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar iyadoo ka dhigaysa 2 waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar sanadka labaadna 200 milyan oo dollar ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhismo ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah sidaa darteed heshiiskii dawladda Puntland la gashay 6dii bishii afraad 2017 waxaa jebisay shirkadda Global Port Service sida uu qorayo heshiiskii ay galeen dawladda Puntland iyo shirkadda Global Port Service qodobada shanaad oo ah ballaarinta dekadda qodobka 26aad oo ah joojinta xadgudub shirkadda iyo farqooyinkooda kala duwan iyo jadwalada kala duwan 2 ilaa 6aad waxaana soo jeedinaynaa in dekadda Boosaaso lagu soo cesho gacanta wasaaradda dekedaha Puntland maadaama ay isaga shaqaystay dekadda Boosaaso maadaama ay iskaga shaqaysteen dekadda Boosaaso waxay ka qabteenna aysan jirin shirkadda Global Port qoraalka moshinku saas uu qoran yahay mudanayaal waxaan idin akhriyayaa mudanayaasha mooshinka soo gudbiyey inta sugan oo saxiixoodu sax yahay 1
mudane maxamed axmed ibraahim. 2 mudane mustafe bile maxamed. mustafe bile maxamed. gudoomiye ninkaas waa maqan yahay. mudane ayaanle yuusuf ismaaciil ma saxiixin, saxiixiisuna ma sugna. mudane ayaanle saxiixa miyaad leedahay? ma aha saxiixaagii. xeerku wuxuu qorayaa xildhibaanka saxiixa rasmiga oo ka yaal inaan ku jeegarayno. saxiixaagiina ma saarra mudane. haddaa saxiixa beddeshina waa ii soo gudbin kartaa mudane. waa mahadsantaha. mudane burhaan aadan aw cabdi. mudane cabdirashiid siciid maxamuud. mudane yuusuf maxamed axmed gacshe. mudane xildhibaan cabdikariin xuseen guure. mudane maxamed nuur saciid. mudane maxamed cabdi magacaas waa qabiyo. maxamed cabdi waa kuma mudane. mudane siciid shire maxamed. mudane cabdi jaamac cabdi bile. mudane cabdirasaaq siciid aadan. okay. sideed xildhibaan ayaa mudane guddoomiye saxiixoodu sax yahay oo halka ku sugan. waana mahadsantihin. gacanta taagay hawada barasada intii ka hore mudanayaal mooshinkaas in laga hadlo hirgalo yaa ku raacsan xildhibaanada hala tiriyo tirada ii sugan. cadaad ma tirisay maya shaacuur hubi waa 10 mudane dhiga. yaa diiday saddex mudane yaa ka aamusay. yaa صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. gudoomiyaha golaha wakiilada, dhammaan xubnaha golaha wakiilada, howlwadeennada golaha, marti sharafta iyo saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane guddoomiye iyo mudanayaal, maanta taariikhdu waxa weeye 27 bisha 8aad 2018 kalfadhiga 41aad fadhigiisa 27aad. kooramka hadda fadhiya waa 40 mudane, fasax iyo jiruna waa 3, maqnaashuna waa 23. waxaynu ku furanaynaa howl maalmeedkeenna sida caadadeennu ah inaan igu anfaco. mudane guddoomiye, waan kugu soo dhowaynayaa si aad noogu furtid howl maalmeedkii. ku soo dhowow. mooshinka waxaa aqriyaya waya waxaa habraaciisa noqonaya 6 baa soo gudbisa 22 baa ku raacda. marka 22 uu helo wuu hirgalay doontiisa
jirto codka aan isdhegaysano kabacdi si tirada loo soxo shaqaalo u saxan waa salaamantii kusoo dhowxoy بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idiin akhriyayaa sida guddoomiyuhu inoo sheegay mooshin la keenay xafiiska xogeyaha lana wadaagay guddoonka golaha ayna soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowladda Puntland waana sidan ku guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland ujeedo mooshin ka dhan ah heshiiskii dekedda Boosaaso mudane guddoomiye iyo mudanaya maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha 6 sida uu qoran weeye 16 bisha 6 2018 waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo uu dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar iyadoo ka dhigaysa 2 waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar sanadka labaadna 200 milyan oo dollar ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhismo ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah sidaa darteed heshiiskii dowladda Puntland la gashay 6dii bishii afraad 2017 waxaa jebisay shirkadda Global Port Service sida uu qorayo heshiiskii ay galeen dowladda Puntland iyo shirkadda Global Port Service qodobada shanaad oo ah ballaarinta dekedda qodobka 26aad oo ah joojinta xadgudub shirkadda iyo farqooyinkooda kala duwan iyo jadwalada kala duwan 2 ilaa 6 waxaana soo jeedinaynaa in dekedda Boosaaso lagu soo cesho gacanta wasaaradda dekedaha Puntland maadaama ay isaga shaqaystay dekedda Boosaaso maadaama ay iskaga shaqaysteen dekedda Boosaaso waxay ka qabteenna aysan jirin shirkadda Global Port qoraalka moshinku saas uu qoran yahay mudanayaal waxaan idiin akhriyayaa mudanayaasha mooshinka soo gudbiyey inta sugan oo saxiixoodu sax yahay 1 mudane Maxamed Axmed Ibraahim 2 mudane Mustafa Bile Maxamed gudoomiye ninkaas waa maqan yahay mudane Ayaanle Yuusuf Ismaaciil ma saxiixin saxiixiisuna ma sugna mudane Ayaanle saxiixa miyaad leedahay ma aha saxiixaagii xeerku wuxuu qorayaa xildhibaanka saxiixa rasmiga oo ka yaal inaan ku jeegarayno saxiixaagiina ma saarra mudane haddaa saxiixa beddeshana waa ii soo gudbin kartaa mudane waa mahadsantahay mudane Burhaan Aadan aw Cabdi mudane Cabdirashiid Siciid Maxamuud mudane Yuusuf Maxamed Axmed Gacshe mudane xildhibaan Cabdikariin Xuseen Guure mudane Maxamed Nuur Saciid mudane Maxamed Cabdi magacaasu waa qabiyo Maxamed Cabdi waa kuma mudane mudane Siciid Shire Maxamed
مدن عبد الجامع عبدي بلا مدن عبد الرزاق سعيد آدن عبد الرزاق سعيد آدن اوكي sideed xildhibaan ayaa mudane gudoomiye saxiixoodu sax yahay oo halka ku sugan waana mahadsantii موشيكاس من لها توهيرجو يا سمع أحسن حلباء هذا تريو ترى يسوع عقد المترسل ما يشاعر هو وأطول ولا يا ديلي يا ديلي صدق يا سموه يا كناصي يا أيها فاسدون فيروسك سبوتوي خطف سواحلنا بسم الله الرحمن الرحيم Yo,